cunaqabateen siyaasadeed inay saaran tahay cunaqabatooyinkaasi dhammaantood wuxuu sheegay inay deegaanka saameyn weyn ku yeelatay waxaa tusaale u soo qaatay dhaqanka oo uu sheegay in markii la rabo un loo yeerto mar kalena aan loo yeeranin ama adan laga lahayn ciidamada ayuu sheegay in 21 sano ka hor askarigii dablaha ahaa ee Axmed Madoobe la socday maanta inuu weli yahay dable Axmed Madoobena uu diiday in ciidamada qaranka Soomaaliyeed ay ka mid noqdaan ciidanka Jubbaland iyo dadka kale ee ku sugan Kismaayo iyo deegaanada maamulkaas sidoo kalena uu diiday in ciidamadaasi la dalacsiiyo darajooyin la siiyo iyo in ay ka mid noqdaan ciidanka xuquuqda ka qaata dawladda Soomaaliya qodobka kale ee muhiimka ah ee wasaaruhu ka hadlay waxa uu sheegay in madaxda dalka soo martay dhammaantood isbedeleen isagoo tusaale u soo qaatay madaxdii hogaamisay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo kuwa dawladda dhexe laakiin Axmed Madoobe ilaa hadda uu soo taagan yahay oo uusan isbedelin cid bedeshay